soo dhawaada maanta waxaan idinla wadaagaa alaab aad ka heli doontaan tintaada maasha allah waxay kaaga dhigaysaa ayada dhan jileeca jeclaan doontid way ku nafaqeynaysaa waxay ka ilaalinaysaa dhaawaca iyo maxaa la dhahaa talafka iyo baaba-a sidoo kaleeto waxay ka ilaalinaysaa tinta burburka way isu kaa raacinaysaayoo bixinta tinta door weyn ka qaadana waa alaab dabiiciya haddana jikadaada taala aan lacag kaaga baahnayn oo bilaash aa ku heli kartid aan fideogeena gudagalno bismillaah allahuma salli calaa sayidina maxamed qaliyaad salliga rasuulka caleyhi afdal salaatu wasalaam badiya hadda koo waxaan soo qaadanaa weelka aan ku sameynayo waxaan waa bunka marka asxaabta lama rabo waxa suuqa lagu gado bun beerka la yiraahdo ama adaa shiidanaysid waa tumeysaa ama se qof aad ku kalsoontaha kasoo gadane waxaan qaado weyn waraangada door weyn ayay ka qaadataa mid kasta waa gadaala idinka sharxa waxa waaye hal qaado subag sixin ama hal qaado oo saliid qumbo ama hal qaado oo saliida sinsinta wixii aa haysatid ama saliida lowska ama saliid saytuun ani hadda saliid qumbaan ku daray hal qaadaa ku daray kasoo qaad waxa aad haysataa kondhashinka oo tinta markii ashaambada lagu dhaqo kadib lagu dhaqo hal qaado ah hadaa haysatid hadaadan haysan dhib male waxaan ku daraa kale asxaabta waxaan waa dacar maxay tinta u qabataa way jilcisaa koow way nafaqeysaa kobcinteedana door weyn ayay ka qaadataa oo maasha allah tinta iyo wejiga iyo maqaarka intaba wuu u fiican yahay marka maxaa sameynaya asagoo diyaara dukaanka kasoo gadanay laakiin waxaa ka fiican oo wadankeena qani ku yahay asagoo saanaa soo qaadee waa dhaqaysaa biyaa ku dhigaysaa jeelka oo aan fiicnayn baa ka baxaya kadib saanaa u diireysaa jeelka dhexda ku jira si iisiya ula soo bixi alaabta nafaqo maasha allah tintaada way kuu dheeraane way kuu jilcee way kuu nafaqoobe marka hadda jeelkii aan soo sameeyey ayaan ku daraa asxaabta kaale iska arag waxa dhan aan isticmaalnay waa wax iisiya oo aad heli kartid haddana dabiiciya oo aada iyo aad tintaada door weyn uga qaadanaya maanta kadib tintaada ma u baahna alaab nafaqa banaanka ugama soo gadaysid alaabtan waa isku soo shiiday asxaabta qaaliga alaabtan runtii waa alaab nafaqa waxaan idiin sheegaa bunka aada iyo aad midabka tinta ayuu wuxuu ka qaataa inuu tinta midabkeeda saxda ayuu usoo celinayaa sidoo kale wuxuu sameeyaa tinta meesha ay kasoo baxdo ayuu xoojiyaa wareega oo maxaa la dhahaa wareega dhiiga ayuu wuxuu sameeyaa nashaad iyo firfircooni ayuu siinaa marka tinta midabkeedana wuxuu sameeyaa wuu xoojiyaa macnaha tinta midabkeeda hadda alaabteena waa diyaar maasha allah see u marsanay asxaabta qaaliga tintaa marinaysaa oo nadiif ah 3 saac 4 saac intaa rabtaa kusoo haynaya waa soo dhaqaysaa kaale iska arag saastaa u marinaysidba tintaada waa jeclaysan doontaa marka asxaabta tijaabiya inaad ka heli doontaan waan hubaa 100% marka asbuuci hadaa maalin marsatid maasha allah marka waxaan idiin sheegaa asxaabta qaaliga waraangada tinta maxay u qabataa tinta waxay ka ilaalisaa soo daadashada labo waraangada wejiga marka la marsado way taagtaa tinta soo qaroofanta way kuu fidinaysaa maxay kaloo sameysaa caabuqyada tinta ku jira madaxa ayay la dagaalantaa sidoo kale maxay sameysaa tintaada wax qurux badan oo dhalaala ayay ka dhigaysaa maxay kaloo kaa ilaalinaysaa inay tintaada soo daadato runtii waraangada aaday ugu fiican tahay tinta iyo maqaarka oo waxyaabaha la isku cadeeya ayay kamid tahay geedka loo yaqaano dacarta saan idiin sheegay tinta wuu nafaqeeyaa wejiga aada ugu fiican yahay iyo jirkaba tintaada alaabtan waxay ka ilaalinaysaa asxaabta qaaliga tintaada inay dhaawac ama waxaa daryeel daraday ka ilaalinay way kuu dheereyne way kuu nafaqeyne way kuu jilcaynaysaa asxaabta qaaliga alaabtan nafaqo weeye ka faa-iideysta intaa ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago intaan video kale ku kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.